Netflix ayaa soo saartay filim documentary cusub oo ciwaan looga dhigay Our Father Aabahayo. Filimku waa qisada dhabta ah ee dhakhtar noqday aabaha 94 carruur ah. Our Father waxa uu diiradda saarayaa Dr. Dolan Cannon oo ah dhakhtar bacrimin oo isticmaalay shahwadiisa dhowr bukaan oo dumar ah. Dolan waxa uu ka aasaasay xarun caafimaad oo bacriminta gudaha Indiana 70-yadii. Waxa uu ahaa dhakhtar si wanaagsan loo ixtiraamo. Haweenka dhibaato kala kulmay inay uur qaadaan waxa ay doonan jireen daryeelkiisa. Dolan Cannon weligiis laguma dacweynin inuu shahwadiisa ku talaalay bukaanadiisa isagoo aan wax ogolaanshaha ka helin maadaama waqtigaas aanu jirin sharci Indiana ka soo horjeeda dhaqankan. 40 sano uu shaqada bacriminta ka shaqaynayay hawshaasna uu ku jiray waxa uu suurtagelisay inaan la ogaan iyadoo aanay jirin waqtiga baaritaanada DNA-du. Waxa uu rumaysnaa inaan weligii la ogaan doonin. Dr. Dolan Cannon waxa loo yaqaan dhakhtarka bacriminta ugu fiican Indianapolis. Xataa waxa la siiyay darajada dhakhtarka bacriminta ee heerka koowaad sanadihii 70 ilaa 80-yadii. Bukaano badan ayaa filayay inay ilmo dhalaan marka ay u tagaan Dr. Cannon. Sanadkii 2014 waxa la ogaaday inuu isticmaalay shahwadiisa si uu ugu talaalo bukaanadiisa. Jacoba Baller, mid ka mid ah carruurta Cannon, taasoo ahayd tii ugu horreysay ee ugu dambeyntii ogaatay ficiladiisa. Markii baaritaanka DNA-du uu sheegay Jacoba inay leedahay 7 qof oo DNA-da ay wadaagaan oo ku nool qaybo ka mid ah Indiana, waxay ogaatay inay wax khaldan yihiin. Tan iyo markaas waxa la xaqiijiyay in Cannon uu aabbo u yahay in ka badan 9 carruur ah. Maadaama aanu jirin sharci markaa u diidaya Cannon inuu sidaasi sameeyo, kiiskaas isaga ah laguma qaadin. Si arrinka lagu xukumay ayaa ah inuu been u sheegay xeer ilaaliyaha guud markii wax laga weydiiyay hawlihiisa shaqo iyo inuu carqaladeeyay baaritaanada. Taas awgeed waxa lagu soo oogay 2 dacwadood oo dembi oo is-hortaag ku ah cadaaladda. 2017 waxa lagu ganaaxay $500, 1 sano oo xadhig dhaqan celin ah iyo inuu waayay rukhsadiisii dhakhtarnimo. Inkastoo uu horeba uga fadhiistay muddo ku dhow 10 sano. May 2019 ayaa la dhaqan geliyay sharci mamnuucaya in dhakhaatiirtu ay shahwadooda u isticmaalaan hab bacrimin ah gobolka Indiana iyagoon ogolaansho ka haysan bukaanadooda. Dhammaadka documentary-gan ayaa ka tegaya su'aalo badan sida maxaa ku dhacay Cannon oo sidee ayay tani ku dhacday markii hore. Laakiin daawadayaasha ayaa sidoo kale aad u xiiseynaya inay wax badan ka ogaadaan haweeneyda sheekada keentay.